127 gool, 64 kulan, iyo 20 cisho uu socday Koobka Adduunka waxa uu ku soo dhammaaday farxadda Messi iyo xulka Argentina, 40 sano ku dhowaad oo ay raadinayeen ku guuleysiga Koob Adduun. Xalay waxaa xaqiijiyay taas ciyaaryahan Messi. Ciyaar xiiso badan oo dhex martay xulalka Faransiiska isla markaasina gebagabo u ahayd Koobka Adduunka ee ka socday Qatar. Waxaa la odhan karaa ciyaaryahan Messi isaga ayaa waday xulkiisa oo xalay xaqiijiyay taas. Laakiin ha ilaawin goolhayaha Argentina oo soo bandhigay ciyaar cajiib ah, lana odhan karo xalay waxa uu ninka xaqiijiyay guusha Argentina 30 sano kadib. Weli dunida waa ka sii jiri doontaa yaa xariifsan Messi iyo Ronaldo. Laakiin ciyaarihiisa wanaagsan ee Koobka Adduunka ee sanadkan uu ka sameeyay Lionel Messi waxa uu sii noqon doonaa mid la sii hadal hayn doono. Ciyaarta oo ahayd mid xiiso badan, naxdinina la socotay ayaa qaybta hore ciyaarta Argentina waxa ay Faransiiska ka dhaliyeen 2 gool. Rajada Faransiiska iyo taageerayaasha Faransiiskuba waxay noqotay mid adag. Hase yeeshee tababaraha xulka Faransiiska oo ciyaarta ka saaray Griezmann iyo Giroud oo weliba ku soo bedelay da'yar aan garoomada kubadda cagta ka soo muuqan, una muuqday inuu ciyaarta sii dilay isla markaasina uu xulka Argentina koobka sii siiyay. Hase yeeshee geesinimada tababaraha waxa ay xulka Faransiiska u keentay inay keenaan goolasha barbaraha. Ciyaartan ayaa waxay ka mid tahay ciyaaraha ugu xiisaha badan ee Koobka Adduunka laga ciyaaro. Taariikhaha mucjisada ee ka dhacay Koobkan Adduunka ee sanadda 2022 ee lagu qabtay Qatar ayaa laga diiwaan geliyay taariikho kala duwan iyo weliba mucjisooyin ka dhacay kubadda cagta adduunka, waxayna noqon doonaan taariikhahaasi kuwo la sii hayo ilaa 2026 oo koobkan xiga dhici doona ciddii gaadha.